faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya weerar xalay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in dad loo qabtay weerarkii xalay ka dhacay Muqdisho. duqa Muqdisho oo sheegay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah. Puntland oo ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo colaad beeleed ka taagan deegaano ka tirsan gobolka Sool. maamulka gobolka Hiiraan oo sheegay in cabsi ay ka qabaan in mar kale webiga Shabeelle uu fatahaad ka geysto magaalada Beledweyne. cudurro uu ka mid yahay jadeecada oo ka dillaacay deegaano hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. iyo Israa'iil iyo Imaaraadka oo ku heshiiyey inay xiriir diblomaasiyadeed ay yeeshaan. faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar xalay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. dhanka kalena maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in dad loo qabtay weerarkii xalay ka dhacay Muqdisho. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya. qaraxyo loo adeegsaday bambaanooyin iyo dhawaqa rasaas xooggan ayaa xalay laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. xarumo qaar ee degmooyinka gobolka qaar kale oo ka mid ah waaxyaha ay ku shaqeeyaan degmooyinka iyo baro control oo ciidamada ammaanka ay leeyihiin oo ku yaala Muqdisho ayaa xalay lagu weeraray bambaanooyinka gacanta laga tuuro. xarumaha iyo baraha control ee xalay la weeraray ayaa kala ah degmooyinka Yaqshid, Boondheere, Shibis, Kaaraan, Dharkiinley, Waaberi, Wadajir, Deeniile iyo xarunta uu ku shaqeeyo maamulka Garas Baaley. maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay weeraradii ka dhacay degmooyinka gobolkan. waa kan afayeenka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan. degmada Dharkiinley iyo waliba deegaanka Garas Baaley waxaa la weeraray xarumaha ay ku shaqeeyaan. sidoo kale degmada Wadajir ayaa iyaduna xarunta ay ku shaqeyso ayaa bam lagu tuuray. degmada Waaberi iyaduna xarunteeda ayaa bam gacmeed lagu tuuray. Dayniile waaxda loo yaqaano Hordama oo ka tirsan degmadaasi ayaa iyaduna bam gacmeed lagu tuuray. sidoo kale degmada Boondheere waaxda Siinay ayaa iyaduna lagu tuuray bam gacmeed. degmada Yaqshid waaxda Horseed ayaa iyaduna bam gacmeed lagu tuuray. sidoo kale degmada Kaaraan waxaa bam gacmeed lagu tuuray xarunta degmada iyo waliba waaxda Nageyle. degmada Shibisna waxaa markaa lagu tuuray bam gacmeedka waaxda Calasoodhe. marka tirada guud waxay noqonaysaa 10 marka loo eego degmada Kaaraan oo 2 meelood bamka lagu tuuray. inta la xaqiijiyay 4 qof oo shacab ah iyo askari ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa ku dhaawacmay weeraradii xalay. waxaa sidoo kale gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah raggii weeraradaasi geystay. mar kale afayeenka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan. runtii waxaa weeraradaasi ku dhaawacmay tira hadda aanu hayno waxay tahay ilaa iyo 4 qofood oo 3 shacab ay yihiin iyo 1 qof oo askari ka mid ah ciidamada booliska oo kaasoo ka howlgalayay xarunta waaxda Siinay ee degmada Boondheere. ilaa iyo haddana waxaa loo qabtay weeraradani 2 ruux oo iyagu loo malaynayo inay ahaayeen dadkii falkaani ka dambeeyay weerarada ka geystay degmooyinka aan dhahayd Boondheere iyo Shibis. labadaas ruuxna waxaa lagu qabtay xaafad ka mid ah degmada Shibis. xaaladda magaalada Muqdisho ayaa nabdooneed bilooyinkii la soo dhaafay waxaana weeraradan oo u ekaa kuwa abaabulan ay noqonayaan kuwa aan Muqdisho ka dhicin sanadihii la soo dhaafay. mahadsanid Cali Cilmi Salaad. isla wararka gobolka ayaan ku guda jirnay. gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Finish ayaa waxa uu sheegay inay u diyaarsan yihiin in gobolkan Banaadir ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah taabadelkeeda ay ka soo horjeedaan doorashooyinka dadbaneyd ee 2016 ka dhacday magaalada Muqdisho laguna doortay dawladda haatan jirta. dhalinyarada Soomaaliyeed ayuu ku booriyay inay ka qayb qaataan doorashada qof iyo codka ah ee la doonayo in dalka ay ka dhacdo si ay u helaan doorkooda siyaasadeed ee dalkan. intaa waxa uu raaciyay gudoomiyaha gobolka Banaadir in dowladda federaalka ay u diyaarsan tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay siiyaan doorkooda kaga aadan dib u dhiska dalkan iyo u shaqaynta qarankooda sida uu yiri. dowladda Soomaaliya ee hadda joogta waxay idin siisay fursad oo waxay idin tiri waa qof iyo code codkiina ku ciil baxa. marka haddii laydin yiri
doorasho qof iyo coda ayaa la qabanayaa ay yidhaahdaan doorasho dadbana la qabanayaa ma garan kartiin tee idin hiilinaysa doorasho dadban waa inteennaan hadda madaxda inaan iska sii joogno oo intaan meel laab isla galno annaga le aan iska sii dooranay weligeyn aan madaxdii ahaan tiradiinna maxay taraysaa marka si tayadiinna iyo tiradiinnu ay u soo baxdo oo waxaa la yidhaahdaa internationally majority waa aqlabiyadda lead is the minority aqlabiyadda ayaa aqaliyaadka hoggaamisa inta badanaa hoggaamisa inta yar marka intii badan inaad tihiin adinkaa noo sheegaya in laydin hoggaaminaya adinkaa noo sheegaya inaad fiican tihiin adinkaa noo sheegaya wax isqaba kara maaha sidaa darteed dowladdaana idin hiilinaysa ka faa'iidaysta kaasina wuxuu ahaa duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish puntland ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo colaad beeleed ka taagan deegaana ka tirsan gobolka sool cumar maxamed soomane madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo shir jaraa'id warbaahinta kula hadlay magaalada garowe caasimadda maamulka puntland ayaa baaq nabadeed oo deg deg ah u jeediyey beelaha walaalaha oodwadaaga ah ee ku dagaalamaya deegaanka lafaweyne oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudun ee gobolka sool dagaalka ka dhacay deegaankaasi ayaa salka ku haya murno ku salaysan argoose iyo aanooyin qabiila waxaana uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow dadka deegaanka ay halkaasi ka barakaceen axmed cilmi cismaan karaas ayaa si sharuud la'aana ugu baaqay beelaha ku dagaalamaya deegaanka lafaweyne in dagaalka ay joojiyaan wixii khilaafaad ahna ay miiskooda hadalka ku dhammeeyaan waxa uu sheegay in la doonayo sidii dib loogu soo celin lahaa qoysaskii ka barakacay deegaankaasi balse aan loo baahnayn dagaal mar kale dhiig ku daata oo deegaanka ka dhaca waxaan baaq nabadeed halkan ugu dirayaa beelaha walaalaha ah ee dagaalku ku dhex maray meesha la yidhaaho lafweyne doonaha degmada xudun ka kooban waxaan ilaahay uga baryaynaa wixii ku dhintay inuu u naxariisto wixii ku dhaawac inaan u boogadhayo caafimaad degdega siiyo waxaan kaloo baaq u jeedinaynaa baaq degdega inay joojiyaan dagaalka iyo mashaqadaas si shuruud la'aana inay ku joojiyaan waanu ugu baaqayn maanta dadka halkaa jooga uma baahna dagaal dhexdooda isna nabadgelyaan ugu baaqayna cid walba inay nabadgelyo kula noolaadaan dhexdooda iyo cidihii kaleba dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa ammaan u soo jeediyey odayaal waxgarad isimo iyo duqey ka soo kala jeeda beelo walaala ah oo iyana ku dagaalamay deegaana hoostaga magaalada buuhoodle ee gobolka togdheer madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay in dadaaladii nabadeynta ahaa ee odayaasha ay ku baxeen ay ku guulaysteen beelihii halkaasi ku dagaalamayna ay heshiis nabadeed dhexdhigeen waxaan kale oo iyana aan hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa isimada hawsha wanaagsan ka soo qabtay ee nabadeynta ah beelihii soona buuhoodle maxay ku dhex maray mashaqadii ku dhex martay oo ku guulaystay oo maanta maxay tahay nabad lagu naaloodo ka sida waxaan iyana aan u dirayaa ugu ducaynaynaa in isimadii oo halkaa intay soo dhammeeyeen ku sii jeeda inay mashaqooyinkan wax ka qabtaan uu shil ay ku galeen soonahaas oo ka dhaawacmeen garaad cabdisalaan iyo caaqil sanyare iyo ciddii kale la socotay ku dhaawactay ilaahay inuu u boogadhayo baan ilaahay uga baryaynaa waxaan kale oo rajaynaynaa arrinkaa isaga ahi inay isimado iyo ciddii kale waxgaradiba ay ku guulaystaan oo si degdega khasaarahu iyo dagaalkaasi waxaan ugu baaqaynaa inuu intii hore uu noqdo waanu wax ka dambeeya wixii ka dambeeya ay nabad iyo noqoto iyo isimada oo ku guulaysta hawsha ay wadaan hadalkan baaqaha ay ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash ee ku aadan joojinta xiisadda ka taagan deegaanka lafweyne ayaa ku soo beegmaya iyadoo 24 saac ee ugu dambeeyey ay isa soo tarayeen baaqyada wax ku oolka ah ee loo jeedinayo beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanka lafaweyne oo ka tirsan degmada xudun ee gobolka sool markana hiiraan maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan in mar kale uu webiga shabeelle fatahaad ka geysto magaalada beledweyne cabdisataar xaaji cali ayaa warkan soo koobaya
wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo deegaano xuduud la leh gobolkaasi ayaa sheegaya in shacabka ku nool halkaasi ay ka cabsi qabaan in mar kale uu fatahaad sameeyo webiga Shabeelle iyadoo saacadihii la soo dhaafay magaalada beledweyne iyo degmada Mustaxiil oo ku taal xadka Soomaaliya iyo Itoobiya uu ka da'ay roobkii dayrta. Sheekh Xuseen Cismaan Cali madaxa arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan oo u waramay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in guddiga ka hortagga fatahaadda ay wadaan dadaalo lagu xakameynayo fatahaadaasi isaga oo tilmaamay in haddii roobku uu sii socdo webiga uu fatahaad hor la samayn doono. horta cabsi aad jirto oo marka dadka bulshada aad dhaxdishido fiirisid waxa waaye waa dareemaysaa in cabsi jirto waayo webiga xadkiisii waa ilaa yani magarsi waa aad u buuxa roobkii waa xilligoodii la joogaa waa socdaa inkastoo guddiga ka hortagga fatahaadaha runtii ay dadaal adag ay ku jiraan oo shaqo adag ay ka socoto magaalada beledweyne gaar ahaan dhanka Hilikariya iyo dhanka Waraabaanaba ay howl adag ay ka socoto haddana yani magarsi cabsidaasna way jirtaa marka laakiin guddigu waxay ku adkaysanayaan markay xaaladda ay qiimeeyaan inay sanadkan insha Allah ay dadaali doonaan oo laga ceema doono biyaha laakiin cabsida guud waa jirtaa dhinaca Mustaxiilna waxaa naga soo gaaraya xagga askiimideenayna waxay leeyihiin cabsi weyn aad jirto haddii roobabka ay sii socdaan oo xaaladdan ay sidaa kusii socoto in mar saddexaad ama mar afraad ay beledweyne ay marti geliso in mar kale ay dhacdo fatahaadii webiga Shabeelle. sanadii ugu dambeeyay ayaa fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle waxa uu saameeyay 100 kun oo qoys oo ka qaxay deegaanada uu maro webiga Shabeelle. cudurro uu ka mid yahay jadeecada ayaa lagu soo waramayaa inay ka dilaaceen deegaano hoos taga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan inoo soo diray. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe Saalax Fuleel Xaaji ayaa sheegay inay haatan sii fidayaan cudurrada ka dilaacayo deegaano ka tirsan degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaana uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka inay haatan sii kordhayso xaaladda dadka u geeriyoonayo cudurka jadeecada tuulada Buule Axmed Cigo iyo tuulooyin kale oo uu sheegay in haatan cudurro kale ay ka jiraan taasina aysan jirin wax gargaar oo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha aysan ka helin. maamulka degmada Mahadaay ayaa dhowr jeer ku celceliyay in la soo gaarsiiyo dadkaasi ay saameynta ku yeelatay fatahaadda webiga Shabeelle ee cudurrada haatan ka dhashay gargaar caafimaad xilli haatan ay sii kordhayaan caafimaad darrada ka jirta tuulooyinka fatahaadda ay saameysay. cudurka ma aragtay dhimashada Buule Axmed oo badnaata laakiin tuulooyinka guud ahaanba cudurradii saameynaa ku haystay kaneeco waxyaaba ma aragtay oo balaarsiya oo ugu weyn tahay ayaa ka wada dilaacay laakiinse waxa waaye Buule Axmed Cigo intaas waxay dheer tahay inay jadeeco iyo macduuraadkaasoo dhanba oo maaragtay dilaaca u sii dheer tahay dariisu dhimashada maaragtay oon hor u ahaynina waxa waaye 13 ruux oo caruur ku jiraan halkaa waxa waaye xuquuq ilaahay tanfiido ilaa balcad ku go'ay dadkii deegaanka la badbaado maaragtay webiga Shabeelle labadiisa daan ku noqday malaariyada iyo jadeecada iyo qandhooyinkaas waxay suuragal tahay inay guud ahaan ka timiyihiin balka waxaana sii daa walaa fedra walaa Hirshabeelle oo la kala daa waxa waaye cadda haddii kaneecada laga buufilahay oo si wada u ilaahay wax kale ilaahay u qabaan wax bay ahaaneen kalka oo asbahoodii ayay taagan yihiin. warkan ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada Mahadaay Saalax Fuleel Xaaji ayaa wuxuu imaanayaa xilli degmada Mahadaay tuulooyinka fatahaadda ee saameysay weli ay haatan dad ku jiraan guryahoodina ay ka barakaceen goobtaagana ay degan yihiin xaalad bini'aadanimona ay halkaasi ku haysto cudurro ay u sii dheer yihiin. Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar. aad baad u mahadsantahay Bashiir. markana wararka caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay isku raaceen inay sameystaan xiriir diblomaasiyadeed kaasi oo qayb ka ah heshiis ay Israa'iil ku hakinayso goosashada dhulka daanta galbeed. arrintan ayaa ka dhigaysa Imaaraadka Carabta dalkii ugu horeeyay oo ka mid ah kuwa khaliijka iyo dalkii saddexaad oo xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah la yeeshay Israa'iil. Israa'iil ayaa horay xiriir u la lahayd dalalka Masar iyo Jordan. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay war saxaafadeed ka soo baxay labada dal oo ay ku xaqiijinayaan heshiiska ay gaareen. Trump wuxuu wariyaasha ugu sheegay aqalka cad inay tahay daqiiqad taariikhi ah
maadaama hadda laga gudbay xujadii waxaan filayaa in dalal badan oo carab iyo muslima ay ku daydaan imaaraadka carabta ayuu yidhi Trump. xiriirka Israa'iil iyo imaaraadka carabta ayaa guul naadir oo diblomaasiyadeed u ah Trump ka hor doorashada madaxweynaha ee dhacaysa bisha November ee soo aadan. sarkaal sare oo Falastiiniya oo lagu magacaabo Hanan Ashraawi ayaa dhaliishay heshiiska, waxayna qoraal ay soo dhigtay Twitterka ku sheegtay inuu sii dheeraanayo haysashada Israa'iil ee daanta galbeed.